maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku fulisay Cabdiqaadir Abuukar Shaacir Maxamed oo lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab. waxa warkaas magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdiraxmaan Waabari. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaana u qaabilsanaa qaybta qaraxyada. waxaana ninkan la sheegay inuu sahmin jiray goobaha ay isugu yimaadaan dadka shacabka isla markaana gawaarida ay ku baakimaan si halkaasi qaraxyo ugu fuliyo sida ay sheegtay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. goobta xukunka dilka uu ka dhacay oo ahayd xirada iskool Buluusiya ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. xukunka dilka ay fulisay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta shir jireed u qabtay xeraliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kamey. bismillaah taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 11aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Cabdiqaadir Abuukar Shaacir Maxamed 41 jir ahaa ina shoobto shaacir ku dhashay Xamar kaasoo xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyay qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyay si loogu qarxiyo waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyay ee uu soo sahmiyay taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 3aad 2017 qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale. b taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 4aad 2017 wuxuu geeyay baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale. sidoo kale wuxuu soo sahmiyay qaraxii ka dhacay baar Itaaliya taariikhdu markay ahayd 8 bishii 5aad 2017 halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale. d taariikhdu markay 15kii bishii 5aad 2017 ciidamada amnigu waxay ku qabteen Cabdiqaadir Abuukar Shaacir Maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamar Weyne gaar ahaan XNA dambiile shabaab Cabdiqaadir Abuukar Shaacir Maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bishii 12 2018 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa horay xukuno kala duwan waxa ay ugu fulisay rag lagu eedeeyay inay ka tirsanayeen ururka Al-Shabaab isla markaana qaraxyo iyo dilal ka geystay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya.